xeer ra'iisul wasaare magacaabidda guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka heer federaal. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya marka uu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markuu arkay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii lagu heshiiyey habraacyada doorashooyinka ee ay si wada jir ah u gaareen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 1 Oktoobar 2020 ee lagu go'aamiyey dhismaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka si ay iskula jaan qaadaan dhammaan guddiyada arrimaha doorashooyinka qaranka. Marka uu arkay mas'uuliyadda, waajibaadka iyo qaab dhismeedka guddiyada ka kooban 25 xubnood oo ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo 21 xubnood oo ka kooban guddiga xalinta khilaafaadka, marka uu tixgeliyey magacaabiddii xubnaha ay soo magacaabeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, marka uu arkay baahida loo qabo magacaabidda guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka. Qodobka 1aad, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu magacaabay guddiyada kale ah guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 2020-2021. Magacaabiddu waa sidan hoos ku xusan: guddiga doorashooyinka ee heer federaal 2020-2021 Cabdiweli Maxamuud Cilmi, Maxamed Xasan Maxamed, Mahad Dheere Xaashi, Mawliid Mataan Salaad, Faadumo Maxamed Cabdulaahi, Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadam, Caasho Abubakar Qaasim, Madiina Aadam Malabow, Cabdinuur Maxamed Axmed, Saciido Maxamed Mascuud, Maxamed Aadam Cusmaan, Faadumo Cabdirasaaq Sheekh Ciise, Axmed Maxamed Ducaale, Cayduruus Saalax Yuusuf, Cabdijabbaar Cabdulaahi Faarax, Liibaan Abuukar Cusmaan, Yuusuf Maxamed Khayr, Muuse Geelle Yuusuf, Cabdiweli Cali Cabdulle Timcade, Cabdicasiis Sheekh Xuseen Dayib, Xaawo Xaaji Maxamed Malindi, Liibaan Axmed Xasan, Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdinaasir Maxamed Guuleed, Maxamed Maxamuud Cadow. Guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka 2020-2021 Axmed Ciise Geelle, Maxamed Faarax Xirsi, Cali Maxamuud Faarax Cali Zeko, Nimco Axmed Cabdi, Maxamed Aweys Maxamed, Cabdiqaadir Xuseen Cabdi, Cabdulaahi Abyan Nuur, Xuseen Laki Maxamed Maxamuud, Saaqo Aadan Maxamed, Cabdirasaaq Cali Kaahin, Amal Mustafa Muuse, Maxamed Ibraahim Barre, Cabdi Maxamed Sheekh, Burhaan Cilmi Xirsi, Yaasmiin Maxamuud Cabdi Xaamud, Warfaa Maxamed Jaamac, Axmed Yuusuf Maxamed, Garaad Yuusuf Maxamuud, Mustafa Macalin Cali Salaad, Farxiyo Xasan Cusmaan, Liibaan Cusmaan Nuur. Qodobka 2aad, waxaa xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee xeerkan ku magacaaban la farayaa inay si hufnaan iyo cadaalad ku jirto u gutaan waajibaadkooda shaqo ee ku qeexan heshiiska habraaca doorashooyinka oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka. Qodobka 3aad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabiddani waxay dhaqangelaysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee dowladda. Fulin wacan, wabilaahi towfiiq.